الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waa Sky News TV oo alaaba ka daawataan wararka Soomaalida iyo caalamka hadaba daawadayaal si aad uga mid noqoto bahweynta ku xiran Sky News TV saar subscribe gambalaalkana furo si aad markaaba u hesho macluumaadada aan soo gelino oo aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo barnaamijyada Sky News TV hadaba daawadayaal dhawaanahan waxaa socday xidhiidh ka dhexeeyay Taiwan iyo Somaliland kaasoo ay dureen Soomaaliya iyo Shiinuhu hadaba dawladda Taiwan ayaa si adag uga jawaabtay hadallada ka soo yeedhay labadaas dal taasoo ku tilmaantay waxaan loo dul qaadan karin xoghaynta arrimaha dibadda ee dalka Taiwan ayaa waxa ay sheegtay in Shiinuhu uusan weligii ka talin arrimaha gudaha ee dalka Taiwanna ay u madax bannaan tahay cidda ay la samaysanayso xidhiidh sidoo kale waxay tilmaameen maqaalka ka soo baxay dawladda Soomaaliya in ay ka dambeysay Shiinuhu kaasoo arrinkaas dibadda ka riixaya si uu carqaladeeyo heshiiska curdinka ah ee labada dal sidoo kale mas'uuliyaddu waxa ay sheegtay in Somaliland aanay ka arrimin Soomaaliya 30 sanadood ee u dambeeyay waxay tiri Somaliland waxay qabsatay 3 doorasho oo qof iyo cod ah waxay dhamaystirtay dhammaan hanaanka dimuqraadiga ah ee dal looga baahan yahay waa dal iyo dad isku tiirsan oo ay ka go'an tahay inay ka dhabeeyaan kana mid dhaliyaan hadafkooda dawladnimo sidaa daraadeed ma jirto cid u yeedhin karta Somaliland iyo Taiwan tona waxa ay rabaan iyaga iyo shacabkoodu tan ayaa dharbaaxo adag ku noqonaysa Shiinaha iyo Soomaaliya labada dal ayaa waxay iska kaashan doonaan arrimo ay ka mid yihiin beeraha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale Taiwan waxay Somaliland ka saacidi doontaa ilaalinta xeebaha Somaliland sidoo kale sida ay sheegtay madaxweynaha dalkaasi Somaliland waxaanu ka caawin doonaa ayay tiri maray ka hadlaysay xafladii daahfurka ahayd ee xafiiska Hargeysa taasoo khadka online-ka kaga soo jeedisay khudbad oo faahfaahisay dhammaan arrimaha ay Somaliland iyo Taiwan ka wada shaqayn doonaan mustaqbalka dhow hadaba daawadayaal barnaamijka aan ku eegayno jawaabta Taiwan ay ka bixisay hadalladii ka soo yeedhay Shiinaha iyo Soomaaliya intaas ayaan ku soo gabagayn doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh